Fiidiyowgan wuxuu ka bilowday orod waliba mid degdeg ah. Haddaba muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa jimicsiga aan u baahnayn culayska iyo waxyaabaha mushkiladda ku ah naftaada ama se ku keeni karaya. Marka ugu horreyn mashiinka lagu ordo ayaad ku ordaysaa. Hadda waan iska yar istaajin doonaa maadaama muuqaalkeena aynan doodayn inaynu in badan aynu orodno. Hadda waan isaga degnay mashiinkan waa isku yara kululeynaysaa. Kadib markii aad isku yara kululeyso waxaad u gudbaysaa qaybaha kale ee lagu dhisay iyagana caloosha iyo dhabarka. Hadda waynu kacaynaa. Waxaynu aadaynaa dhanka kale ee kaga hadli doono kuwa caloosha. Marka ugu horeysa kanoo kale caloosha ayaa lagu dhisaa ama se murqyada caloosha iyo kuwa ka agdhow baa lagu dhisaa. Waxa ka dambeeya waxa weeye bir gacanta ayaad ku qabsanaysaa. Haddii kale oo qof kula joogana qofkaas ayaad cagihiisa qabsanaysaa. Cagahaagana si ay xoogan oo ay wada socdaan dhulkana aadan taabsiinayn ayaad marba dhinac u geynaysaa, bidix, midig iyo tooska. Sidoo kale waxaa jirta qayb ka yara duwan oo qaybtan markii iyaduna aad dhisaysid caloosha iyadana waa isla eegaynaa. Waxaa samaynaysaa gadaal ama dhabar ayaad u jibsanaysaa. Kadib waa isdheeririnaysaa. Cagahun ayaa dhulka soo qaadaysa adigoo aan dhulka aadan taabsiinayn. Kadibna saasaad u qabanaysaa markasta. Laabtaadana kor ayaad isu taagaysaa. Tan waxay ka caawinaysaa murqyada caloosha iyo waliba xagga dhabarka. Uma baahnid bir waaweyn inaad qaadid. Sidoo kale kan 1 daqiiqo ayaa wanaagsan inaad kor u haysid. Gacmaha ayaa dhulka ku xijinaysaa, aad ugu riixaysaa. Intaada kalena waxaad ka ilaalinaysaa inay dhulka taabato. Kani isagana sidoo kale waxaa lagu dhisaa waa dhabarka iyo waliba caloosha. Caloosha ayayna u badan tahay. Murqyada caloosha dadku yaqaanaan six pack in door ah ayaad markasta adigu ku celcelinaysaa. Tiro ayaana qabsanaysaa. Waliba tiradaas waa inay tahay tiro aanan isbedbedelayn. Kan isagu waa push up-kii. Isagu push up-ku waa jirkoo dhan ayaa loo odhan karayaa amar ilaahay. Waxayna tahay si toos inaad u samaysid oo isla eg. Kan isagu waa push up uu ka yara duwan yahay laakiin wuxuu isna dhisayaa kuwa gacmaha iyo kuwa calooshaba dhammaantood maadaama aad iska tahay qof haddaad doonto dee mar la arko iska fadhiya. Kanna waa sidii oo kale waa qaybta caloosha. Ma moodaa inaan kaliya dhisayna caloosha iyo waxyaabaha la xiriira. dee caloosha haddii ku hagaagto inta kale iska hagaagaysaaba amar ilaahay. Qaybtana sidan oo kale ayaa loo isticmaalaa iyadoo waxay ku tacalluqdaa dhammaan inta sare oo dhan amar ilaahay. Markaas si isla eg ayaad hoos u keenaysaa. Haddii aad culus tahay waxaa laga yaabaa inaad mashiinka ka soo dhacdid. Markaa iska ilaali tartiib waa inaad isku daydid. Tan iyaduna waxaa lagu dhisayaa cagaha. Yacni farahaaga hore adigoo ku haynaya dhulka ayaad si isla eg u kacaysaa una soo fadhiisanaysaa. Yacni murqyada cagaha bawdiyaha iyo kuwan ku hooseeyaba xoogaa naqaska iska yar saaraysaa. Haddaba muuqaalkeena halkaas aynu ku joojinaynaa. Sidoo kale cagaha waxaad ku yar dhisaysaa, kuna adkaynaysaa, kuna toosinaysaa qaybta baaskeelka. Haddaba waa inoo muuqa xiga. Idinkana waxaan ku codsanaynaa marka aad u baahan tahay inaad biro waaweyn qaadin sidan samee. Mahadsanidin.